inkastoo mahadhooyinku ay yihiin qaar isbarkan haddana xubnuhu waa qaar isa saaran. Lautaro Martinez waa mucaashiqiinta kubadda cagta hal mar indhahooda ilinku soo taagay iyo sababta. Xidiga reer Argentina ayaa waraysi u bixiyay waxa uu ku sheegay in aanu helin qiimayntii uu adduunyada ku lahaa iyo kubadda cagta, taasoo uu sheegay in haatan isaga waxa lagula kacaya ay tahay yesmo aanu qalmin. Weeraryahanka Inter Milan iyo xulka Argentina Lautaro Martinez ayaa si cad u sheegay in riyadiisu ay tahay inuu ku guuleysto Ballon d'Or kadib markii uu sanadkii hore ku dhamaystay kaalinta 7. Martinez ayaana sheegay inuu filayay inuu boos ka sarreeyo galo tartanka 2024 maadaama uu ahaa hogaamiyaha goolasha Serie A. Sidoo kale uu xulkiisa Argentina ku hogaamiyey Copa America isagoo 5 gool dhaliyay isla markaana ku guuleystay Super Cup-ka Italia isagoo gool dhaliyay semi-finalkii iyo finalkiiba. Maruu qowdhamayay waxaa hadaladiisa laga diiwaan geliyay: waxaan filayaa inaan kor uga kaco boosaskaasi, laakiin waxaan ixtiraamayaa go'aanka garsoorayaasha. Anigu waxaan ahay qof aan weligiis qarin dareenkiisa. Hadafkaygu inaan muujiyo waxa ugu fiican xilli walba. Waxaan riyo weyn ka leeyahay inaan mar uun qaado Ballon d'Or. Waa abaalmarin weyn oo qiimo leh. Markii la weydiiyay hadalkii Messi ee ahaa inuu isagu ku guuleysan lahaa abaalmarinta halkii uu Rodri ka qaadan lahaa, Lautaro waxa uu ku jawaabay: ma garanayo, abaalmarinta shakhsi ahaaneed waa muhiim, laakiin kooxda ayaa ka muhiimsan. Guusha kooxda ayaa noo sahasha inaan halkan joogno. Martinez waxa uu qirtay in mararka qaar uu dareemo in la yaso ama si hoose loo qiimeeyo, balse waxa uu ku adkaystay in mar walba naftiisa iyo kooxdiisa uu ciyaaro. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inay arrin suuqgeyn ama sawir bulsho noqoto, laakiin aniga muhiim ma aha. Waxaan rabaa inaan ahaado qof wanaagsan oo edeb leh. Waxaan ku qanacsanahay waxa aan gaadhay, inkastoo weli wax badan inaan barto ay harsan tahay. Markii la weydiiyay meesha uu ka galo weeraryahanada ugu fiican dunida, Martinez waxa uu si kalsooni leh u yidhi: hubaal waxaan ka mid ahay 5 ugu sarreeya. Magacyo ma rabo inaan sheego, laakiin waxaan sameeyay sanadihii la soo dhaafay ayaa ii oggolaanaya inaan meeshaasi galo. Hadalkan iyo waraysigan ayaana ahaa mid uu la garnaqsanayay guddida soo xusha tartamayaasha iyo kuwa biladaha qaabilsanba. Lautaro ma aha shakhsi qarsada waxa uu isagu tabayo iyo sida loo arko, balse waa mid ku mashquulsan oo keliya in uu ciyaaraha horumar ka gaadho, kooxdiisana aanay saameyn ku yeelan hab ciyaareedkiisa waxyaabaha warbaahintu isla dhex marayso. Waa garnaqsi kii u dambeeyey ee cawska cagaaran oo isaguna xilligan fasaxa furka uu tuurtay ninkaas in badan haddii uu aamusnaa. Waa nimankii Barcelona iyo ninkii Rashford ahaa wayse sudan yihiin. waa laysa sudan yihiin, maryaha layska calaashanaya. waxaan ka idhi murkacashada intaa faraha ka baxday. Kooxda Barcelona ayaa ka fiirsanaysa suurtagalnimada ay ku celinayso Marcus Rashford wax ka yar 2 bilood kadib markii ay ku soo qaadatay ama hal xilli ciyaareeda, sida uu sheegay wargeyska Nacional. Rashford ayaa La Liga Champions ku biiray bishii Luulyo kadib markii laga reebay tababarka kooxda koowaad ee United. Weeraryahankan England ayaa lagu hor istaagay tababarka kooxda koowaad ee United isagoo la mid noqday ciyaartooyga sida Sancho, Garnacho, Anthony iyo Malacia. Si kastaba waxay u muuqataa inuu Rashford ula dhibaatoonayo la qabsiga nolosha iyo ciyaarta horyaalka Spain iyo kooxda Barcelona. Waxaa la fahansan yahay in maamulka Barcelona ay ka walaacsan yihiin waxqabadkiisa, taasoo keentay in la tixgeliyo in la joojiyo heshiiska amaahda ee Rashford. Weeraryahankan 27 jirka ayaa ka qayb qaatay 3 kulan ee ugu horreeyay La Liga ee xilli ciyaareedkan, balse waxaa la bedelay kulankii ka dhanka ahaa Levante ee 23 August markii Barca looga hormaray 2-0 ka hor inta aysan kooxdu samaynin soo kabasho 3-2. halkaana waa la isqadhiirsan yahay. war halkan iyo ninkan waxaanu ka filaynaa wax isku mid ah ma aha bay leeyihiin. sidoo kale xidigii reer Senegal ee kooxda Chelsea oo si lama filaan uga hadlay sababta uu kooxdaasi reer dollar barkada uga xagaa baxay.
weeraryahanka reer Senegal ee Jackson ayaa sheegay inuu dareemay murugo yar markii uu ka tegay Chelsea si uu ugu biiro Bayern sida uu sheegay wargeyska Tutto Sports. waxaan ka tegay Chelsea saaxiibada iyo taageerayaasha anigoo xanuun yar dareemaya. waxaan halkaas kula qaatay waqtiyo shucuur badan. waxaan ku guuleystay Conference League iyo Club World Cup. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkaan halkaas kula kulmay ayuu yidhi Jackson. xidigan 23 jirka ayaa xusay inuu ixtiraamayo macallin Maresca balse uu u baahday isbedel xirfadiisa. maruu haddaba waraysigiisa arrimahani kaga hadlayay uu qowdhamayeyna waxa uu yidhi ciyaartu waa wareegto, mararka qaar wax walba sidii la rabay uma socdaan, ma jiro wax qoomama keliya waan mahad celinayaa. marka la weydiiyey kulanka Champions League ee Bayern 17 Sebtembar ku wajahayso Chelsea ayaa waxa uu yidhi waxay noqon doontaa kulan xiiso leh, laakiin marka la yeedhiyo seeriga waxaan siin doonaa wax walba Bayern. fursad weyn ayay tahay inaan muujiyo cidda aan ahay iyo horumarkayga. Jackson ayaa Bayern ugu biiray heshiis amaah oo leh qodobo qasab iibsasho iyadoo Chelsea heli doonto qiyaastii 70 milyan. ninkaasina furku tuurtay isma hayn karaya ayuu yidhi. xidiga Rodri oo fariin culus u diray Lamine Yamal hallumin hibadaada hana ku mashquulin warbaahinta. kabtanka xulka qaranka Rodri ayaa ku booriyay xidiga daada yar Lamine Yamal inuu diiradda saaro kubadda cagta isla markaana hibadiisa cajiibka ugu adeego kooxdiisa iyo qarankiisa. isagoo shir jaraa'id qabtay Sabtida ayuu khadka dhexe Man City waxa uu carabka ku adkeeyay muhiimadda in dhalinyarada la hago. waxaan u rajaynayaa isaga in hibadiisa u adeegsado kooxda iyo kubadda cagta. ciyaartooy waayo araga aniga oo kale waxaan arkay ciyaartooy mararka qaar ka lumay wadadii saxda ahayd, balse Lamine waxa uu leeyahay aragti cad. waxaan halkan u joognaa inaan caawino. waxaan arkay isagoo faraxsan, dhoolla cadaynaya, horumarinaya kubaddiisa, taasoo ka dhigan guul u soo hoyatay dalkayga. inkastoo Yamal mararka qaar lagu dhalilo habnololeedkiisa ka baxsan garoonka, haddana waxqabadkiisa gudaha garoonka weligii su'aal lama gelin. daayarka 18 jirka ayaa haatan ka mid ah kuwa ugu cadcad ee ku guuleysiga Ballon d'Orka ee 2025, taasoo muujinaysa kororka degdega ee xirfadiisa. halkaasina waa halka xubinteena kariska iyo kala haadinta oo anigoo Maxamed Tirikaan idinla socodsiinayay. intaasi ayaynu kusoo gabagabeynaynaa saaxiib, intaynu midda xigta ku kulmi doona oo aanu leenahay middan kuma ekee way isku daba jiraan. inta ka horeysa sida ayaa amaana Allah.